excited about aniga laftigayga caaway aad iyo aad baan u faraxsanahay sababtoo waa markii ugu horeysay oo company-gan caalamiga Easy Way aan mataqaana program ka soo sharaf iyo waxay tahay xushmad ayay ii tahay adinka waxaan kaga mahadcelinayaa dhammaantiin meel kasta aad joogtaan wadankii iyo qaaradaha adduunka meel kasta aad ka joogtaan waqtigiina qaaliga ahaad maanta soo qaadateen aad u timaadeen halkan inaad wax kororsataan not only inaad idinka kororsanaysaan aniga laftigayga arday baan ahay waan idinka kororsanayaa yes macallimiin badan baa ku jirta qolka oo mataqaana aqoon aniga iga badan leh marka laga hadlayo dhinacyada forex-ka iyo programyada kaleeto laakiin waxa mahad inoo ah dhammaanteen inaynu u joogno halkan inaynu kala faa'iidno intiina aanay aqoonin magacaygu waa maxamed xaashi jaamac qaar badan oo ka mid ah waa ay taqaaniin laakiin qaar badan oo qolka caawa ku jirta ayaanay aqoonin marka waan iskii barayaa ganacsigan hadda online marketing la yiraahdo muddo hadda 5 sano ayaan hadda kusoo jiray waxa laga yaabaa meelo kale inay u taqaaneen waxa kamid ah company-ga One Life oo taqaaneen oo mataqaana muddo badan runtii riixayno sida crypto sida bitcoin iyo kale inuu noo noqdo way naga yar cagjiiday oo ilaa hadda iska sugayno waxa company kale la yiraahdo sidoo kale Opulence Global waa taqaaneen daawooyinkan Fountain of Life daawooyinka dabiiciga oo lagu iibiyo oo aan laftigooda gacan weyn mataqaana ka geystay inay runtii horumar aad u ballaaran inay gaaraan aniga laftigeeduna aan ka gaaray marka waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan maanta maxamed jaamac maxaa Easy Way Global maxaa maanta maxamed jaamac keenay waxay keeneen waa inta adinkaba keentay waa horumar iyo mataqaana cilmi kororsi iyo inaan hore u socdo taas unba anigana ay keentay qof walbana caawa intaas ayaa keentay marka intaas guud waxaan uga baxayaa midda guud aniga iyo mataqaana meeshan kasoo jeedo iyo background-kayga sharing ka bilaabaya inta kale waxaan ku wadaagaynaa dhinaca sharekan ku wadaagaynaa insha Allah casharkeena laba qaybood buu kala bixi doonaa maanta qaybta ugu dambaysa oo noqon doonta company-ga Easy Way iyo qaybta hore noqon doonta dhinaca forex-ka iyo ma garanaysaa hawlihii aynu doonaynay maanta inaynu halkan uga hadalno okay waxaan rabaa inaan share yes I hope si fiican ayaa loogu jeedaa ayaan filayaa dhammaantiin magacaygu waa maxamed jaamac waxaan qoray buuggan hadda soo socda ee la yiraahdo The Magnetic Leader waa buuggaas runtii aad uga faa'iidi doontaan oo dhinaca ku dhisan leadership-ka iyo sida mataqaana dadka la isugu duwo sida mataqaana program loo samaysto sida wadada la qaado si aad mataqaana horumar u gaarto oo dhinaca leadership-ka ah entrepreneur waa inta hadda kasoo sheekeeyo dee muddo anaaba dhex boodahayay leadership coach iyo motivational coach labadaasna waa labadan hadda ku taqasusay oo mataqaana shahaadooyinkooda qeybaha ugu dambeeya hadda ku jira alxamdulillah Easy Way Academy waa company-geena qaaligan maanta halkan wada joogno halkudhiganaguna waxa weeye wax baro oo shaqo tag time-ku wuxuu noqon doonaa maanta laba qaybood half an hour oo qaybtan noqon doonta iyo half an hour ama 20 minutes oo su'aalihii jawaabihii waqti aan idin siin doono sidoo kale buuggan dhawaan ayaad ka heli doontaan dhinaca Amazon-ka ayaad ka heli doontaan insha Allah macluumaad aad iyo aad u fara badan ayaa ku jira oo ah sida tiimka loo dhisto sida mataqaana horumarka loo gaaro dhawaan ayaad heli doontaan insha Allah aan u soo noqono marka waxaan caawa meesha u joogno forex lacagaha sarifka sidee ayaa horumar looga gaaraa waa lagu murmay arrinkan dadba dhinac bay u jeediyeen qolo waxay tiri cilmi iyo waxaad u baahan tahay inaad degan tahay inaad hore u socoto ayaad u baahan tahay qolo waxay tiri waa baqtiyaan nasiibo mataqaana lacagta dhinacaaga inta laga galaa hadba midaas leedahay candlekaas leedahay kor buu aadayaaba dhexda laga raacaa qolo kale waxay tiri lababa sameeyeen marka hore waa la isdiyaariyo demo waxa yiraahdo ayaa la garaacaa markay ku degto gacanta ayaa la soo dhex galaa laakiin xaqiiqadu waxay tahay number 1 markaad bilaabayso lacag toos ah inaad trading ku samayso waxaad u baahan tahay sharci ayaad u baahan tahay inuu ku degsan yahay wax kasta haddaad school aadayso jaamacad aadayso aad cilmi rabto inaad barato buug iyo qalin baad u baahan tahay computer baad u baahan tahay mataqaana macallin baad u baahan tahay step by step baad u socotaa hore kagama soo boodi kartid hore kama samayn kartid maadaama aadan hore ka samayn karin waxaad u baahan tahay sharci ayaad u baahan tahay sidoo kale haddaad reer dhisayso gabar rabti inaad shukaansatid anigu dhinaca raggan ka hadlaya shukaansi baad u baahan tahay sooma gabadhii waa inaad la hadashaa waa inaad mataqaana horta inaad isfahmaysid waa inaad aragtaa time waana siisaa waa inaad wixii markaad isbarataan baad ka bacdi isguursataan sooma yes waa iska jirtaa Soomaali waynu nahay
واسوقنا مدح كل قبل محل ورجل صومالي وكاهري ونوي ناس قرصنا وعالي تاس وأنا ضد إسلامي إنه نهاي لكن وحنا رجلا واحد توين وين الشرع إجراء كود دكان أكو شقة الشرع ياسم فيه جدال بون إنه جاي ما أنتونا سويت سنة الشرع عدم واحد حد تابتو طاب كود سنة واحد تهاي ماركت كان فوركس كليرا هذا صاحب كذا معه كمان يقان مسكين إن أتهلو بقول دور هايستو إن مليون هايستو عدكو تقانا مال حتى إن مكة حكومة ومكة بنقية الدنيا ذا حكومة فوركس كتير بانكس أو التقانين وعالم كأياس كله أو متقنا هربوده أو الشحنة الدجين وكل هذا إنه هوس هذا رجع الدجية حتى ما أركان ضدكم ماشي يكسروا قلنا ترير كسميان ما أركان كلية واحد أركان واحد تهلعج بقولال مليون أو دولار أو اسكف لذا أما resistance كيف لذا أما support كيف لذا أيه وجيدان أيه واحد وجيدان order بوجيدان أيه order واحد لذا order كاس أيه قاميان سيوقف إذا يلعقتان هالكان تالله ما تقدر شتى قلبوض بالعقل يقول قول جذنيسا قولوا سكجذيسا قولوا جذنيسا أيه قبلان كود وحي هاي ما دام بنجيدي هي واحد رجعين يعني إني لعقتها كفايدة أديك مركز هذا واحد نمكاس أخيارت مثلا أقولت فرها بدن اللي وحي حكمه جامين هي أديك من نقول كرت أيجي أديك واحد كويا لا واحد تهي إن الشرعي أتكوجا شو ماركت كان إن لا هذا الشرعي لا هين I promise you I can guarantee you tonight مدة أندرين أيام ولقيته صوته اللعب ما ماشان صعوته ضد مصعوبة مثلا إن هذا رو مصعوته صاحبه مصعوته مثلا CEO محمد جاعاوي هالكان بالإنجلي مثلا محمد سيجنال إنجلي متعال لعب ما ضمن ماشان لعبته با أيقول جدا هذيك مركز ساعة وقبل بعده وأنا الشرعي أتوش قيسته وأنا لا شرعي مركز دكستو ما حد باع أنت the biggest دبك أقوى إن الدكة يستوحية yes بلان ولا سمي السنة وقفل بقول لي بلانك واحد يستا لكن حقيقة دبك جرا وحية لما تريد وتجله ممكن لما تريد جرا متك صدق هذا فوق السعر بلانك ولا حكم جرا بقول لي هذا بروجرام كله دك سنة بلان كاستوى حد باع أنت صدق بلاد الله بلاد ويران إن تست كل سميس oo aad waqti siiso barta inuu shaqeynayo inuu shaqeynayo ma aha laba jeer saddex jeer markaad gashid oo ka saarto oo matqana sarifka u saarto ku noqon waayay inaad ka boodido hadana qaliyo buu qaadatid ma waxa la nin kasta oo laacib oo matqana forex ka qalin jabiyay waxa la yiri waxaad sugtaa intuu 5 trade isku xigta luus gareynahay markuu 5 trade isku xigta midka lixaad iyo toddobaad oo sameynaya bal akfar isal macallin kasta وفومو باكو داعي وحو دورنا هيا سيدي هوري ستيبل وما مفهوم marka waxaan waa wax jira oo qof kasta ku dhaca oo mataqaana ay dhib badan tahay inaad hadaad dhexbood soo waxaad u baahan tahay discipline waxaa la yiraahdaa inaad plan si samaysato hore marketka maanta hadda soo gal shalay waa inaad marketka fiirisay oo aad mataqaana xiisado badan baa la sameeyaa ma sha Allah oo waxaas oo ku saabsan waa inuu ognahay كبعد وين اللي واحد إذا قصاري فائدة حريصا the biggest problem وهي دتكو قصارو الفائدة مقابيسنا لما ترى أفرتر مركو لزجريا كون كيس 30% بعد مثلا وقلتاس especially مركز عصبتها هاي remember مركز عصبتها هاي واحد أباهنتها برشة سيستم كسور شقينا chat كان سوق شقينايو ماركت سيده لوغا فايدايو لعبو سيده isku bedelayaan waxaan kor aadaya waxaan hoos aadaya the only way uga bixi kartaa waxay tahay inuu size kaagu yar yahay oo hadii xataa qasaara dhacdo laba jeer saddex jeer qasaarto aadan mataqaana hurdo la'aan kugu ridayna wadnaha ku xanuujinayna mataqaana habeenkii soo waxaad u baahan tahay risk iyo reward habaysan blanka aad dejisay waxaad u baahan tahay consistency waxda waa inaad si joogto ah ugu socotaa oo programka ku socoto again maxaanu ka hadlaynaa qofku inuu plan leeyahay waaga marka inta samaysto goal weyn baad gaaraysaa absolutely remember qof kasta oo forex-ka horumar ka gaaray nimanka idin soo fariisanaya YouTube-ka koronayt within 3 hours ba waxa $7 million we don't know in a demo ku sameeyeen mataqaana $1 million baan ku sameeyay 300,000 baan ku sameeyay we don't ma naqaano xaqiiqadii ma naqaano لكن I can promise you هالشيء يعني كل شيء كرامانته ميت كسته أو كمية
baynka aad wada marteen xanuunka aad wada marteen marka lacagta la lose gareeyo marka margin call marka ku yimaado xanuunka aad wada marteen bay soo wada mareen laakiin hal mar bay success noqdeen waxay ku noqdeen waxay ahayd inay plaankii bedeleen isdejiyeen so guul waxaa kuugu dhow inaad macallimiinta dhegaysato inaad programka lagu dejiye dhegaysato inaadan adigu intaad saa doonto samayso haddana macallinka aadan ku soo calacalin so plan waa inaad leedahay okay waxaa laga yaabaa inaad tahay tusaale ahaan rule baad degsatay waxaad tiri anigu waxaan ka shaqaysanayaa loan keliya oo buy baan noqonaya one of the waxyaabaha ugu fiican oo marka aad cusub tahay kole macallimiin badan baa qolkan ku jirta iga aqoon badan laakiin markaad cusub tahay oo aad marketka rabto inaad bilowdo oo trade-ka aad bilowdo short ha aadin sell ha aadin easiest way waxa weeye buy inaad mataqaanaa market trend ah oo kor u socda oo buy ah way ku sahlanaanaysaa inaad fahanto markii la soo saaraha waxaad tiri mataqaanaa 50 average moving average kaas markastuu soo noqdo oo mataqaanaa resistant ay ku noqoto oo uu ka noqonayo ayaan buy noqonaya ayaan gadanaya laakiin weliga haddii halkaas hoos aado xataa 200 marka ka hoos maro shaqa kuma liiba haddaa cusub tahay oo aad rabto inaad short iyo mataqaanaa buy labadaba aad dhex boodo I promise you qasaaradaada ka badnaanaysa faa'iidada because skillkaagu weli wuu yar yahay so haddaad hal shay ku bilow marka aad rabto inaad gasho marketka bilowga because weli ma taqaanid kandaladan iyo systemkan isbedelayay ma taqaanid meeshay ka soo noqdo marketka ma taqaanaa meelaha key levelada la dhehe ma taqaanaa ay u badan tahay inuu ka soo noqonayo weli aqoontaadii ma habaysnin haddayna aqoontaada habaysnayn waxaad u baahan tahay rule aad marka hore ku socoto horta intaa wax ka fahmayso one of the rules aday ku taalaan midaad samaynaysa iyo macallinka mid advice ku siiyo mar walba qaado laakiin dadka cusub inta badan waxaan ku ogahay hadday just buyer noqdaan only buyer haddaad noqotid oo market trending ahna aad raacdid way ku sahlanaanaysaa inaad mar walba inaad fahanto buygaas iyo qaabka u soo noqonayo qaabka u soconayo waa laga yaabaa markaas khasaarada ay faa'iidadaadu inay marka hore inay isku dhawaato waa laga yaabaa laakiin rulkaagu muxuu yahay haddii suuqu hoos aado oo mataqaanaa dhinacan ka shidnaado oo meherka aado adigu shaqo kuma lihid waayo adoo shaqo ugu lahayd remember marketkani $5 trillion lacag ka badan baa marta mar walbana trade waa jira waana soo noqonaya hoos ha aado cirka aado kor ha aado haddaad disciplineta oo rulkii aad degsata aad ku socoto wuu imaan doonaa moving averagekaagu soo gaari doonaa wuu dhaqaaqi doonaa decisionka adaa iskale markaa inaad samaysato one of the ruleska marka waxaan ka wadaa waxay tahay aday kuu taalaa waxaad samaysanaysid laakiin lahaw plan aad tirado plankaas aanu ku shaqaysanahay especially markaad cusub tahay oo aad bilowga tahay lahaw rule yar oo aad fahmi karto oo aad ku shaqaysato sidoo kaleeto waxaad odhan kartaa anigu resistance iyo supportkan ka shaqaysanaya markaad wax fahamto oo mataqaanaa xargaasda meelaha yayaalo oo dhan waa meelaha key levelada ah oo marketku suurtageliya inuu kasoo wareego aday ku taala go'aankaada iskale rulka aad degsanayso annaga malihin rule kastoo marka adigu aad degsatid waad ku shaqayn kartaa laakiin discipline ku ahaw inaadan hadba meel ku boodin yes signalo badan oo fiican baa macallimiintu bixiyaan signalka haddaadan timeka lagu soo diray aad mataqaanaa sheeko ku jirto telefoon ku jirtay oo 5 minute ka bacdi 7 minute ka bacdi aad aragto then oo aad signalkii geliso already wuu dhaqaaqay waxaa laga yaabaa candlekii oo sii maraya 15 bib dhaqaaqay 10 bib dhaqaaqay inaad gashaa laga yaabaa oo hadhowta markuu soo kala wareegaya aad la kulanto ood khasaarto aad tiraad macallimiintana waxay sheegayaan waxba kama jiro so wax walba timing bay leeyihiin marka signaladu imaadaan timingkaaga ku soco signalada laftigooda adigu haddaad rabtaa iska kashanin waa ku bara macallimiintu maalba idila dul taagan yihiin signalka marka lagu siiyo lagu yidhahdo intaa ka dhig mataqaanaa losskaagu waa intaas profitkaaguna waa intaas gal shaxanka gal mataqaanaa horizontalka linekaaga saaro fiiri qaabka u soconayo mataqaanaa intuu gaarayo profit 1 profit 2 kulli fiiri go'aan kasii qaado si adkee ta'kiid kusii samee waad samayn kartaa haddaa rabtid go'aan baad qaadato lesed tusaale ahaan hadda shaxankan waxaad tiri anigu sidaydaba sel baan samaynaya buyba ma sameeyaan waa la mid mar kasta oo mataqaanaa moving average 50 aday ku talaa 9 baan isticmaali kartaa 8 baan isticmaali kartaa 20 baan isticmaali kartaa
qof wax uu isticmaala taas waa adiga ku tac laakiin mar walba halka ka soo noqdo waxa tiri tusaale ahaan aniga trade baan sameeyay why because rule baa leedahay so muhiimadda ugu ballaaran waxay tahay markaad sharci leedahay aad ku shaqeyso so midna arag marketka nima joogo ku dhahay anigu swing trader baa shaqa kuma leedahay wax kale trend baxayna shaqa ku lahayn kuwa kale hoos aadayna shaqa ku lahayn oo cirka gelaya swing trade waa swing kaas midba meel kala qabsanay kuwa kale waxay dhahaan anigu up trend trader baa just markuu marketku kor aadayo bay ka faa'iideysan wax kala shaqo kuma laha maanta dhan 50 moving average kas hadduu hoos ka aadaya maanta dhan laga lacageysanayo hal oo dhan ma sameeyaan why u sameyn waayeen aqoon darro kama rule bay leeyihiin businesskooda uu ku salaysan yahay qaabkaas so waxaad u baahan tahay waxay tahay waxaad ku shaqaysato aad fahmayso lahaw discipline ku ahaw oo raac ilaa aad horumarka ka gaarayso the biggest problem ka ugu ballaaran marka forex ka nimaado waa maxay lacag boorso weyn baa wadana saddex boorso afar boorso waxaan rabnaa inaan 2 week ka buuxino waxaan xasuustaa markii aan training lacag ugu horeysa ku sameynayay almost 10 months ago baan mareynaya 1 year ago maalinkii waxaan sameynaya $1,000 maxaa wataa boorso weyn ma wataa sax boorso weyn waa soo tash aqoonina ma jirto right so maalinkii balaankayga wixii aan $1,000 sameeyay so every 2 days aniga baa minus more than $1,000 ilaa markii dambe lacag badan aan lose gareeyay sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay lacag sameeyay igu jirtay laakiin iguma jirin waxaan ma horta intaan fariisay waxaan ma future baan ka rabaa waxa kan mise waxaan ka doonayaa wax short ah oo mataqaana intaan lacag ku tuurto oo mataqaana kumanaan kun ka helo haddana aan ka dhaqaajinayo misaasaa micno mise waxaan doonayaa professional inaan ku noqdo 20 sano 10 sano 40 sano adduunka meeshaan ka tagaan doonaya inaan ku shaqeysto waa your decision blankaygu aad buu qaldanaa qof kasta oo lacagay ku soo galay inuu boorso weyn wato suuqan bal aamin suuqaad ku dhex waalan doontaa waxaad faa'iido dib ayuu kaaga qaadanaya waa xaqiiqo waa ogtiin dhammaantiin qaar badan oo kamid waad soo marteen faa'iidadii aad samayso dib buu kaaga qaadanaya kalsoonidaa kaa lumaysa akoomadaad qarxinaysaa mataqaanaa suuqan waad ka baxaysaa maxaa bilaabaysaa markaas inaad maxamed xaashi blame garaysid inaad mataqaanaa xamdi blame garaysid maama fahmo aad tiraahdo way khasaaraysa inaad tiraahdo CEO-yada inaad khasaaraysa doctor hanan mataqaanaa ibraax dadkii oo dhan inaad mataqaanaa ogbaad waa la badaya khaalid macallimiinta oo dhan inaad mid kasta mataqaanaa aad dabada qabsato tiraahdo waxay hayaan waxba kama jiro laakiin reality-gu waxay tahay adiga ayaa mentality-ga u qaldan okay professional markaad ka noqoto suuqa waa long term iyo short term haddaad rabto long term waxaan inaa wax ka faa'iido suuqa remember suuqa forex-ka waxaa aakhirka macallimiin ku noqda oo mataqaana horumar ka gaara dadkoodana uga faa'iidaya dadka maskaxdoodu tahay inay jaranjarada step by step u raacaan nin baan arkay lacag 22 million haysa waa saaxiibka oo forex-ka macallin weyn ku 22 million ayuu haystaa kabana dhan buu leeyahay halkaan kusoo qora qiyaasa inta trade oo week dhan sameeya shadda wala 4 buu sameeyaa Monday to Thursday kaliya shaqeeya markuu ugu bato 12 trade buu sameeyaa waa awooda 100 trade la sameeyaa ninka maaha yes waa awooda 11 trades ayuu sameeyaa laakiin 11 kuwa oo quality le ayuu sameeyaa sideenoo kale inta iska dhex booda 40 trade ma sameeyno week 20 40 trade ma u sameeyno plan buu leeyahay balaankiisa markuu meet gareeyo suuqu ayuu trade ka sameeyaa iskama sameeyo haddaadan mustaqbal dheer aad maskaxda ku hayn suuqan inaad ku yeelato dan luqmad yar baa raadinaysaa waa saxdii luqmad yar oo maanta intaad heshay 2 bari soo gashay laga yaabo inta qasaarta inaad hadhowtana ka tagto unbaad helaysaa haddii aad doonaysa laakiin luqmad fiican oo sharaf leh oo markaad holiday aado weli lacag soo gasho markaad gurigaaga joogto lacag soo gasho markaad suuqa wareegaysa lacag soo gasho haddaad mustaqbalka ka doonayso maskaxdaada waa inaad sidii professionkii waa inaad u dhaqantaa inay waxaan shaqo kuu tahay inaad doonayso 5 sano 6 sano 7 sano 8 sano
inaad ka shaqaysato 20 sano ka shaqaysato taas waa dadka maskaxdooda ay mataqaanaa doonaya waxaan inay sida business iyo cilmi inay ku fakaraan inay tahay oo ay horumarkoodana ku xiran inay wax bartaan jaranjaradaas haddaad saas u raacdo markaad kor ka gaarto multi-millionaire ba lacag weligaa kama fikeraysa why because discipline baad tahay rule baad leedahay aqoontiina waad heshay horumar baad gaaraysa so the choice-ka adinkaa iskale inaad suuqan ka doonaysaan lacag dhaqsaa oo mataqaana boorsada intaad soo furatay aad boos weyn heliwaa kaaga aad ka qodatay oo rabto inaad 3 daba ka dhisto very quickly iyo inaad plan leedahay oo tartiibta lacag yar faa'iidid oo plan leedahay lacagta aad faa'iidina inaad plan u leedahay aad meel gaarsin aad mataqaana aadan khasaarin oo maalintay shirkada kugu xumaato inaad hadda u baxsan karto so the choice-ka adinka ayaa iskale labadaas midka hadda qaadanaysa the biggest midka ugu weyn ee dadka liqay oo gooyay oo mataqaana baabi'iyay waa maxay lot size code Englishku maxay yidhahdaan if you don't plan you are planning to fail haddaadan plan samaysanin haddaadan lot size aan dhibaato ku geysanaynin aan hurdada kaa kaxaynaynin aadan mataqaanaa 10 koob cabaynin marka laba trader marka laba order markaas laba trader markaas ma soo ay dhinacaaga ay ka soo leexato haddaadan samaysanin plan you are planning to fail I promise you forex marka ma gaaraysa so lot size kaagu waa inuu noqdaa xataa 4-5 trade haddaad lose garaysid mid aan dhibaato ku keenin walwalna kuga abuuraynin mataqaanaa ilmahana ha dhintaadan haraanti ftada ka wada gelinayeen marka waxay kula hadlaan maskaxdaada dhanba waxay tahay xaraaqsantay xooliga dhan baa kaa lumay sooma so lot size-ka aad ku galaysa waa inuu noqdaa lot size aad u yar su-aashaan aad i weydiinaya ka waran haddaan maantay 2 lots 3 lots aan ku galo anoo $10,000 haysta oo $3,000 sameeyo oo haddana $4,000 sameeyo wiigan aan $5,000 sameeyo $15,000 baan haysta ma kula tahay inaan joojinayo inaan lot size ku galo maya ma joojinayo maxaa dhacaya marka hadhow waxaa dhacaya waxay wixii dhan dib baa layga ceshanaya laakiin haddaad ku gasho ka waran 0.3 0.1 even 0.2 oo 5 trader oo kala duwan haddaad ku galo maybe 5taas 3 ka midana inaan helo 2 ka midana inaan laba ka midana inaan ku guulaysto maybe asaar ma joogta akoonkaagii kama weli sidoo mataqaanaa balaa wadnuhu kugu imaayo forex waa sabab martay ma mareynaya hadda gaar waxaa markii lacagta liisgareynayso adeegka dhammaanba soo kacaysa 5 iska soo boodaysa sax meesha waa fiirinaysaa maanta barkinta hoose la ku jirta waxba qosliniina waa ogtii sheekada markay sheekadooda ka soo horjeedo meel qatar baash marayso laba seexdo hadda adoo hurdada barkinta hoose ka fiirinaysaa mobilka ku dhowya sax haddaad doonayso wadadaas inaad martid waa inaad lot size ka seexan kartid haddii waxtaa market ku diido waa inaad leedahay so again waxa lagu soo noqday waa plankii ayaa dib loogu soo noqday waa inaan plan leenahay iyo system aan ku shaqaysano tan waa xigmad aad u ballaaran bay leedahay wax kastoo aad aaminsan tahay ood ku celcelisaa u fiirsadaya wax kasta ood aaminsan tahay ood ku celcelisaa waxay kuu noqonayaan identity waad noqonaysaa marka aad kugu celinaya iyo cayaar ku dhaafay xigmad ballaaran ba ku jirta halkaas wax kastoo aaminsan tahay oo aad ku celceliso waxay kuu noqonayaan identity ay kuu noqonayaan waad noqonaysaa xigmadda ku jirta maxay tahay xigmadda ku jirta waxay tahay haddaad forex-ka markaad soo gasho skillkiisa aad baratid maxaad helaysaa believe kalsooni yes kalsooni forex either you are in pain or you are ereyga kale either you are yesoo qora laba erey bay ahayd either you are in pain going through the painka ama xanuun baad haysataa ama farxad baad haysataa forex labadaas u dhexeeya yes haddaad forex-ka intaad tartiibsato skillkaaga aad ku dartid niyaddaa kuu dhismaysa belief baad yeelanaysaa discipline baad noqonaysaa
sharci iyo system ku shaqaystaa yeelanaysaa aan wax ka macaan ma jirto waa wada ogtihiina u malaynaya markaad intaad 5 trade samaysato 4 ka mid ahay mataqaanaa dhinacaaga 20 bips 30 bips dhinacaaga usoo socoto lacag aa ka dheritid waa arkaysaa u faraxsan tahay sax genis markuu kugu yaana maxaa kugu dhacay wadnaha kugu haya soo mar so waa vital in forexiska aad u treat garaysaa professional inaad ku noqoto laakiin aad u treat garayn wax intaad mobilekaaga gashato maanta dhan hadda mid ku boodaysid aad hadda lacag kaga samaynaysa yes lacag waa ka samaynaysaa laakiin I promise you dib baa u celinaysaa lacagtaas oo okay yes waad nafsadaada waad jeceshaa soo maha yes wax walba la doonaysaa oo wanaagad la doonaysaa fakarku biniaadamku markay fakeraan u fiirso ayaa waxaa dhasha feelingka u fiirsaya ma yimaado adoo fakerin because ma imaan karo markaad fakertid oo wax ka fakertid ood qalin iyo buug qaadatid oo aad fiirisid oo xariiqdid ayaa feelingku yimaada feelingku markuu yimaadana maxaa ku xiga inaad action samayso wixii ku dhaqaaqid action markaad samayso ku dhaqaaqidna hadday sax kuu taho plan fiican leeda maxaa kusoo baxay result waad guulaysatay yes waad guulaysatay so haddaad forexka plan leedahay oo lotskaaguna oo macquul yahay tradeka aad samaynaysana aad ogtahay inta trader wiiga aad samaysanayso resultigaagu markasta wuxuu noqonayaa trust wuxuu noqonayaa resulti wanaagsan buu kuu noqon haddaadan taa samaynin maxaa kugu dhacay wadada inaad maraysaa markaas waxaad leedahay anigu ma aqaano waxa kan wax ii geeya ma aqaano mataqaanaa mana baran karo waxaan samayn kara ma aha aqoonu melihi balaayada tan anigu wax ii geeya ma aqaano wax action aad samaynaysaa ma jiro disappointment waa kugu dhacaysa iyadoo kaa jabta suuqaad ka baxda u fiirsada waxaa laga yaabaa inaad taqaaneen dad aad magac idinkugu lahaayoo suuqa ku jiri jiray macallimiin ah niman cajiiba ah oo hadda laga yaaba inay foreska inta kaceen ay ka baxeen maxay hadda kulli haddaa warayso disappointment soo maha maxamed xaashay blame garaynayaan forexkay blame garaynayaan rida reerkooda u joogtay blame garaynayaan mataqaanaa bisadahay blame garaynayaan cid kasta xaaskiisu blame garaynayaan maalinkii aad soo fiirisa baco baa tayba kuleeya markaad tradkiisa cid kasta la blame garaynaya sax haddaad marka plan leedahay waddadii horaad maraysaa haddii aadan plan lahayn wadadan ayaad maraysaa disappointmenti xunna ma jirto sideedaba qofka ibni aadanka inuu ku dhaco markasta maxaad ka fikraysaa bastiga ayaad ka fikraysaa ha ka walwalin traderadii waxyaabihii aad soo luus garaysay shalay markasta ka fikir berito waa maalin cusub maalin walba bedel balaankii hore aad ku qasaartay haddaadan jimco kasta intaad fadhiisato ereygaa u fiirsada haddaad jimco kasta intaad fadhiisato aadan qadan iyo buug qaadan intii trade aad samaysay aadan chatkii inta gelinin meeshuu maray iyo kuwaad ku qasaartay reasonka sababta ugu qasaartay aadan fiirinin haddeer ba is ogow wadda qadaba ku socda jimco kasta waa inaad koobkaaga shaaxaad soo samaysataa intii trade aad samaysay waa ama buug kugu qoran yahay ama excelkaaga kugu qoran yihiin intii aad luus garaysay wiigan haddaad khasaaro weyn gashay waa inaad khasaaradii taqaanaa qaabka ku timid maaha inaad wax weyn bedeli doontid laakiin waa inaad taqaanaa qaabkay ku timid waa inaad taqaanaa haddaadan jimco kasta intaad fadhiisato aadan balaankaa samaynayna haddeer ba is ogow wadda qaldan baa ku socotaa disappointmentii baa kuu dambayn xaqiiq waay waayo nimanka suuqyada joogaa hadda forexida waaweyn Monday to Thursday ayay shaqeeyaan waxay yiraahdaan Friday waa volatile bay qof walba lacagtiisa cadeysanayo mataqaanaa xisaab heeradii waa la sameynaya way ka joogaan Friday-ga la waa jecelna badankeena volatility-gaas ama ka helnaa marna kor aadis waa dhex badnaa baa daarad sax Friday khasaaro waxaynu ka helnaa yes haddaadan taa samaynayn haddeer bay isagow wadda qaldan baad ku socota self sabotage waa inta hadda kasoo sheekeeyey inaad macnaha isciilkaan bisid oo mataqaanaa hoogiyo ba'ay dartan samayn lahaa wadda qaldan haddaad marto self sabotage baa ku dhimanaysa kalsoonidoo kaa lunta walwal lacag dhacaan rafaad badan baa maraysa ka fogow social mediada marka xaaladda kugu xuntaho formo aad ku jirto maxaa laga wadaa taas waxaa laga wadaa waxay tahay
marar badan baa waxaa dhacda social waxaan galnaa trading view baan tagnaa investment.com baan tagnaa forex factory baan tagnaa kuwa kale aynu tagnaa markaa gasho maxaa ka buuxa ideas fikradaha ka buuxa mataqaanaa brokeradooda ka hadla ayaan suuqa kor buuxa hoos buu aadayaa markii laga hadlayo macluumaadka ka hadlayan waa aragtay market sentimentigu waa powerful aad iyo aad waxyaabaha u culus weeye oo qofka maskaxdiisa trade-ka aad samaynayso qayb weyn bay ku leedahay waxa la yidhaahdo market sentimentiga maxaad u baahan tahay markaa maanta haddaan inta kuwaa dhegaysato trade badan gashay ood khasaartay oo xaaladda kugu xun tahay maxaad u baahan tahay georgi social media instagram ha gelin facebook ha gelin kulli faraha ka qaad keliga adoo ah go-aan gaar waxa aad samaynayso signalada macallimiinta qaada haddaa rabto waa okay theory adigu keligaa samaysa adigu keligaa degan because kuwaan un hadday sentimentigooda adig ku hogaamiyaan maxaa kugu dhacaya dee suuqaad ka baxaysaa akhirka because markaad walwalka badani kugu jiro haddaadan isxakamaynin adigu aadan dib isugu noqonin kuwaani weliba sentimentigooda suuqan bay kaasa saarahayaan because ayagu garantii ma hayaan soo ma kuma sheegi kara waxaan waa garantii kuma dhahayaan so marka xaaladdu kugu cunto aad mataqaanaa aad ka walwalsantahay ama mataqaanaa aad hore u socon la'dahay biggest problemka jira waxa weeye qolo kale aad ku hogaaminaysa so ka joog isdeji keliga marketka adigu samayso tijaabi inta aadan suuqa adigu ka bixin oo aadan isqarxin waxaad samaysaa isdeji keliga bakobshaas waxa inta soo qaatay marketka fiirisid trade-ka samayso macallimiintu signalada kuu sameeyeen kuu sheegeen tartiib u samaysan xalku laakiin muxuu yahay intaasoo dhibaato aan ka soo hadalnay easy way baa xalka yahay qaabka ugu hadlay wuxuu yahay cilmiga ayaan ku baray waayo maxaan nidhi kiiga cilmiga ayaa baro cilmi aad adduunka meeshaad tagto aad uga shaqaysan karto xaggee laga helaa adduunyada cilmi halkaa kuuga jira caalamka meeshaa rabta ka tag mobailkaaga xunkaada soo baxayso haddana lacag ka sameynaysa wax ka fiican ma jiraan sax absolutely so intii aan kasoo sheekeeyey dhibaatada kasoo sheekeeyo dhan halkeedii easy way baa heshay easy way saa ku heshay number one cilmiga ayaa lagu barayaa macallimiin habeen iyo maalin ku taagan oo lacag aada siinin adugu ayaa joogaan maalin walba webinar bay taagan yihiin maalin walba program bay dejinayaan maalin walba sharaxaad bay wadaan maalin walba adinkeeday hortaagan yihiin lacag baa siisaa adugu no lacag baan siinin aniga lacag baa siiseen maanta 2 saac meesha fadhin doono maya idinaa siinin yes idinaa siinin laakiin easy way baa idin diyaarisa system ayaa idin diyaarisay soo dhaqaalaha oo dadka ka caawa biggest problemka ka jira forexiska muxuu ahaa nin lacag loo dhiibo gabar lacag loo dhiibo la yiraahdo iigu shaqee oo kabacdina maxaa dhacaya waxaa dhacaya waxay tahay 3 bilood markaa xooga qaadato bisha 7aad 8aad waxa lagu leeyahay waa qarxay suuqay ma jiro lacagtii badan solutionka marka muxuu noqday inaan dadka cilmiga barno dhaqaalahana ka caawino oo talent fund talent waxa la yiraahdo oo kala dhowr program cilmiga inaan ku barno lacagtii aad ku shaqaysan lahayd oo marketka aad ku tegi lahayd laakiin company ayaa kula diyaara oo ku siinaya xagee adduunyada laga helaa haddaan ku yiraahdo gurigaan dhiso laakiin adigu qariiradii la imo gurigaanaa kuu dhisay dabaqyada anaa kuu dhisay adigu laakiin qariidad fiican oo gurigaan duminayn berito la imo waa guriya oo 6 dabaqa baan baartana dhisato waxaan ku yidhi lacag uma baahnid laakiin qariidad marka la dhiso una dumaynin la imow maxaad u baahan tahay marka qariidad waxaad u baahan tahay salka guriga in laga adkeeyo dhagaxaan adag laga geliyo engineer sameeyo shub badan la geliyo si aan gurigaas u dumin ayaad u baahan tahay waa sidii oo kale lacagtii aad ku shaqayn lahayd capitalka waa lagu hayaa baa layidhi just asxaan ii samee cilmiga macallimiintaan habeen iyo maalin kuula taagan ka baro oo ha iswaalin oo ha iska dhigin qof khatar oo suuqana dhex boodin adigu lacagtaana ha khasaarinin dad baa iska leh xoolada leeyihiin waa adiga malid $50,000 baa lagu siiyo lagu yiri ku shaqayso maada iska leh xagee ka keen funding talent baa iska leh company baa iska leh bangi baa iska leh bangi ma lacag siinoo khasaaro raba no ma rabo khasaaro faa'iido yiin meesha
boqolkiiba labaatan nasiib buu ku yiri boqolkiiba siddeetanna qaaduu ku yiri xagee laga helaa adduunyada so skill iyo professional inaad noqotiin waxaana future dheer inay yihiin maskaxda geliya iska daaya 2 beri inaad lacag ku heshaan 3 beri inaad lacag ku heshaan meel idima gaarsiinayso so annagu waxaan idin haynaa halkii dhibaatooyinkaas dhan aan soo sheegnay ayaanu idin haynaa cilmigii baan idin baraynaa macallimiintii habeenii maalin meesha adduunka joogta ayaanu ku haynaa shaqooyin ayaa dhalinyarada u abuurnaa yes dhalinyaro badan baa jirtay oo maanta easy way lacag joogtaa ka sameeya oo shalay aan koob shaaha cabbi karin lacagta xataa waxbarashada xataa mataqaana CEOyadu ay ka caawiyeen baa jirta qaar ka mid markay mareen shuruudihii loogu talagalay sax shaqooyin badan baan abuurnaa laakiin adiga waxaa lagaaga baahan yahay cilmiga la imow lacag annagu kuma shaqayno lacag dadka ma qaadno xaasha lillah alxamdulillah lacag kama qaadno dad ugumana shaqayno forex annagu intaan lacag forex manihin annagu intaan lacag dadka qaadno uguma shaqayno lacagna uma celino may annagu cilmiga ayaanu dadka barnaa cilmigaad ku shaqaysan lahayd suuqaana lacag waa dhalin lahayd CEO maxamed jaamac wuxuu yidhaa marar badan suuqa lisa marka sidii soo kalahay wuxuu yidhaa lisa suuqa lisa cilmigii aad waxaan ku lisan lahayd top mataqaana aad caanahan ku cabbi lahayd ayaanu ku baraynaa halkan kugu haynaa adiga waxaan kuu dirnay keliya wadadan aan ku marinayno mar oo systemka aan kuu dejinayno raac intaas baa adiga kaa dalbanayna so waxaa la soo gaaray gabagabadii ayaa la soo gaaray casharka waxaan filayaa wax muhiim ah inaan ka hadalnay maanta oo wax badan idinka bedeli doona suuqa markaad forexiska qaabkaad u fikiraysaan iyo qaabka idinkaga u baahantiin inaad u fikirtaan haddaad future ka doonaysaan cilmiga halkaadu dhooban yahay bart wadooyinka leedii furayna raac horumar ayaad ka gaaraysaa markaas mataqaana dhaqaalahan forexiska intiina qol ku jirtay iyo in kaloo ka badan ayaa waxaan rajaynayaa inay horumar ballaaran ka gaaraan oo ay soo baxaan rag iyo gabdho Soomaaliya YouTube-ka jooga oo mataqaana multi-millionaire ah oo mataqaana dadkooda walaalahooda kalena caawin kara oo cilmigan marka ay u barteen sii gudbin kara oo walaalahooda kale u sii gudbin kara laakiin taa waxaad ku samayn kartaa keliya waxay tahay inaad adigu self mataqaana empowerment inaad samayso inaad adigu isdhistid cilmi ahaan kabacdina dadka walaalahaaga aad caawisan iyo kuwa kale kugu hareeraysan aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin walaalaha dhammaantiin waqtigii waa la soo gaaray half an hourkii waan ugu talagalay inaan soo jeediyo programkan waa bilowgii iyo isbarasho ah casharkan I hope inay qaar badan oo ka mid ah inay wax ka bedesho qaabka mataqaana rabaan inay trade u sameeyaan mar kale waa la salaamaya adduunka meel kasta ka joogtaan subax wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan waa maxamed jaamac maxamed xaashi jaamac oo mar kale idin leh aad baad ugu mahadsantihiin taamkaas siiseen iyo inaad mataqaana waqti saaraan maanta idinkula wadaago dhinaca psychology-ga maarka boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii su-aalaha qabtaan iyo waan u gudbin